kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah xaalado kacsanaan ah oo ka jira magaalada Muqdisho iyo kulamo muhiim ah oo mucaaradka ay wadaan. waxaa laga arinsanayaa nidaamka loo wajahayo siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku doonayo in mudakororsi uu ku sameysto. Garowe waxaa laga soo sheegayaa inay isku dhaceen dad dibadbaxayaal ahaa iyo ciidamada ammaanka. dad ayaa halkaasi ku dhaawacmay. maxay tahay ujeedada warkeena ayaad ku daawan doontaan. beesha caalamkana digniintii ugu cusleed ayay ka soo saareen tallaabadii madaxweyne Farmaajo xilka uu uga qaaday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. baarlamaanka ayaa sidoo kale ay dhaleeceeyeen. sidoo kalena dowladda Sweden oo ka mid ah dowladaha sida weyn u garab taagan Soomaaliya ayaa cambaaraysay tallaabada golaha shacabka ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan. warkii oo dhan aynu ku horeynay wali guux siyaasadeed ayaa ka jira gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. tani markii sabtidii aynu ka soo gudubnay golaha shacabka si lama filaan ah ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa. waxaana hadda la soo sheegayaa in shirarka inta ugu badan ay wadaan gudaha caasimadana ay ka wadaan xubnaha taabacsan mucaaradka ee xisbiyada kala duwan hogaaminaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku jira xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo UPD oo isaga uu hogaamiyo. kulankan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen xubnaha xisbigaasi ayaa waxaa shir gudoomiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo looga hadlay arrimo xasaasi ah oo la xiriira siyaasadda dalka iyo isbeddelka ku yimid. qoraal ka soo baxay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee UPD ayaa waxaa lagu sheegay in shirka looga hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo sida laga yeelayo. sidoo kale xisbiga ayaa diray baaq ku aadan in si wadajir ah loogu shaqeeyo sidii loo samata bixin lahaa dalka isla markaana loo abuuri lahaa jawi xasiloon oo suuragelin kara wadatashi. gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD ahna madaxweynihii hore ee sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay kulan muhiim ah oo mas'uuliyiinta xisbiga ay uga arrinsanayeen arrimaha siyaasadeed ee dalka. ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga. mas'uuliyiinta ayaa ka dooday sida muhiim ay u tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isla markaana laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed iyo mid amni. shirka ayaa sidoo kale looga hadlay marxaladda kala guurka ah ee dalka uu marayo iyo sida ugu habboon ee dalka ay uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xilligeeda ku qabsoonta. gabagabadii kulankan ayaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ah looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasilan oo suuragelin kara wadatashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareynayo marxaladan kala guurka ah. inta badan xisbiyada mucaaradka ayaa waxa ay yihiin kuwa diidan nidaamka loo maray guud ahaanba in kalsoonida lagala laabto xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaana baqdin xoogan laga qabaa in magaalada Muqdisho jawi aan wanaagsaneyn ay gasho iyadoona ay sheegeen guud ahaanba madaxda xisbiyada dalka in aysan dooneyn in mudakororsi uu sameysto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay uga fadhiyaan muddada 5 bilood ah ee u hartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ra'iisul wasaare cusub haddii uu soo magacaabo uu ka shaqeeyo doorasho heshiis lagu yahay in dalka ay ka dhacdo. beesha caalamkana digniintii ugu cusleed ayay ka soo saareen guud ahaanba xilka qaadistii iyo kalsooni kala noqoshadii lagu sameeyay xukuumaddii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen walaac uga muujiyay dhacdadii sabtidii baarlamaanka Soomaaliya xilka ay uga qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxayna ka digeen doorasho aan la isku raacsaneyn oo dalka lagu qasbo. qoraalka ayaa lagu yiri saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ay ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhawaan soo kordhay oo ay ku jirto arintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladeyn doonin ajandaha
dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darri dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa haatan laga gaaray arrimaha horumarinta ee Soomaaliya ay ku horumartay. beesha caalamka ayaa ku baaqday wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis ballaaran looga gaaro noocyo doorasho oo dalka lagu qaban karo 2020-2021 waxayna sheegeen inay tahay sababta ay u soo dhaweeyeen go'aanadii ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb dhawaan. saaxiibada caalamka waxa ay ka filayaan in madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 22 Luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirarka lagu sii ambaqaadayo arrimahaas la iskuna keeno dawladda federaalka, dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka. isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamileyda oo isku daya in uu kaligiis dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad ahayn lamana dhaqan gelin karo haddii uusan helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamileyda kale. saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaaro u heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh oo lagu heshiiyey in arrimahan guud ahaanba lagu xaliyo qaab wada hadal ah oo isu tanaasul uu ka muuqdo isla markaana aan la dhayilsan karin in dalka uu gali karo xaalad halis ah haddii sidan uu ku sii socdo. saaxiibada waxa ay ku baaqayaan in si dhaqso ah loo magacaabo dhammaan xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya si ay uga mid noqdaan guddiga farsamada, waxayna diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddiga si hawshaas loogu soo dhameystirana muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey. waxaa la doonayaa in dhinacyadan ay ka shaqeeyaan. waxaa sidoo kale jirta in hadal ka soo baxay dawladda Sweden oo ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya ay walaac xooggan uga muujiyeen xaaladda siyaasadeed ee iminka Soomaaliya ay wajahayso. wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Sweden Ann Linde ayaa walaac gaar ahaaneed ka muujisay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka kadib go'aankii ka soo baxay xildhibaanada golaha shacabka. Ann Linde ayaa sheegtay in walwal xooggan ay ka qabto go'aankii lagu riday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. sidoo kale waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay inuu sii socdo wada hadalka magaalada Dhuusamareeb ee ay heshiiska ku gaareen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Sweden waxa ay walaac ka muujisay arrimaha la xiriira isbedelada isbuucan ka socda Soomaaliya. waxaa muhiim ah in wada hadalka loo dhan yahay uu sii socdo iyo in heshiiska Dhuusamareeb la ansixiyo, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda Sweden oo ah deeq bixiyaha labaad ee ugu weyn midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa dhinacyo kala duwan ka caawisa dawladda federaalka Soomaaliya. horey Mareykanka ayaa uga hor yimid tallaabadii lagu riday xukuumaddii Xasan Cali Khayre uu hogaaminayay, waxaana dawladda Mareykanka ay wacad ku martay in tallaabo sharci ah laga qaadayo qaswadayaal ay sheegeen in Soomaaliya xasilooni darideeda ay ka shaqeynayaan, taasi oo loo arki karay in safiirka dawladda Mareykanka u jooga magaalada Muqdisho uu la gol lahaa golaha shacabka iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la aaminsan yahay inay ka wada shaqeeyeen tallaabadii xilka looga xayoobiyay Xasan Cali Khayre xukuumaddiisii oo idilna kalsoonida lagala laabtay. Garowana wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan xaalad kacsanaan ah in halkaasi ay ka jirto kadib markii ciidamada ammaanka rasaas culus ay ku kala eriyeen dad dibadbaxyo sameynayay. wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya Garowe waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamada ammaanka Puntland ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo dibadbax ka dhigayay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. dibadbaxayaasha oo isugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa ka cabanayay lacago canshuur ah oo ay sheegeen inay ku soo dalacday wasaaradda ganacsiga Puntland. wararka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha iyo ciidamada ay isku dhaceen, taasi oo keentay in loo adeegsado rasaas nool. sidoo kale dadka dhaawacmay ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee Garowe iyadoona markii dambe la kala eriyay guud ahaanba dadkii dibadbaxa sameynayay. dadkan ayaa waxa ay sheegayaan in xadgudub lagu sameeyay isla markaana ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan tallaabada canshuur kordhinta loogu sameeyay.
ma jiro mas-uul ka tirsan Puntland oo weli arrintan ka hadlay waxaana isku daynay inaan xiriir la sameeyno dhinacyada arrintan ay qusayso hase haatee inooma suuragelin warkii caalamka oo aad kala socoteen Hiil Shacab TV waa naga inta haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino Hiil Shacab TV waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada